أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaantiin aad iyo aad baan idin wada salaamaya walaalahayga qaaliga ah. run ahaantii qisaska dadka bakhaylada ah waa qisas cajiib ah oo aad soranaysid ma ku qosashaa, qaar qosol weeyaan, qaar naxdin bay wataan. yacni waa qisas cajaa'ib ah dadka bakhaylka ah. bakhaylkuna waa caduwullah. qofka bakhiilka ah waa caduwullah. waxa weeyaan qofka bakhaylkii waa qof aad moodid iimaankiisa in wax badan uu ka maqan yahay, walciyaadu billah. sababtoo ah qofku waa inuu aamino arsaaqdan inuu ilaahay keeno, qofku inuu risiqa ilaahay siiyo, uu maaragtay meel xalaala ka soo saarto, meel xalaalana maaragtay uu ku bixiyo xuquuqdii ilaahay uu ku lahaa, hadday sadaqa tahay, hadday zaka tahay, maalka, iyo weliba xuquuqdii bani aadamka qofka hoos yimaada iyo mas-uuliyadoodu ay saaran tahay, sida biilkooda oo kale, caruurtiisa iyo waalidkiisa iyo ciddii uu mas-uul ka yahayba, runtii uu xuquuqdooda uu maaragtay uu ka gudo maalkaasi. haddaba qisada tani waa qisaskaasi bakhaylada, waana qiso dhab ah dabcan, sida dhammaan qisaskeenu qisas xaqiiqi ay wada yihiin. waana qiso ka dhacday Sacuudi Arabiya. haddaba halkaasi waxaa ka shaqayn jiray nin dhalinyaro ah Sacuudi Arabiya, magaalo kamid ah magaalooyinka weliba caasimada ahaa waa Riyaad oo caasimada. ninka dhalinyarada ah magaciisa waxaa la yidhahdaa Khalid waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo ka shaqeeya banki, waxaana da-diisu ahayd 35 sano. banki kamid ah bankiyada waaweyn ee magaalada caasimada ayuu ka shaqayn jiray. marka Khalid waxa uu iman jiray 4 cishoba mar, yani wiigiba mar ambal wiigiba 2 goor. oday waayeela. odaygani waxa uu ahaa oday weyn oo waayeela oo ilaahay baa weyn oo waaxid ah, ilaa 80 jir da-diisu ay tahay. odaygani waxa uu ahaa oday wata baabuur aad iyo aad qadiimi u ah, baabuur aad duug u ah, baabuur dee dirqi ku socda. waa baaburada markaasi waxay yidhaahdaan baaburada noocaasa Ditsen Gamara le bay yidhaahdaan, oo markaa baaburo xagga dambe kule, kuwa inagu xaajiyada baa la yidhaha mala xaggeena, oo marka waa baabuur xagga dambe kule bogos maaragta furan oo alaabta iyo xoolaha iyo wax noocaas ay ku wata ay ku qaadaan badowdu. xitaa ciyaalkooda xaggaa sare ee furan, xaggaa yani dambe ee furan ay fadhiisin jireen berigii hore maaragtay badowdu. adigu calaa ayi xaal baabuur noocaasa oo qadiimiya ayuu ninkani uu iska wataa, oday waayeela weeyaan. mar walba lacag kaasha oo fara badan ayuu keenaa. wiigii 2 goor meelahaas ayuu yimaadaa bankiga ninka kani. mar walba wuxuu sidaa lacag u dhaxaysa 40,000 ilaa 60,000 oo riyaalka sacuudiga ah. oo weliba bal 40 amba 60,000 uu keenayo wiigiiba 2 goor meelahaas bankiga uu dhiganayo. marka waa qiyaasan kartaa ninkaasi bankiga wuxuu yahay markaasi yani qof loo adeegayo amba customer, yani aad iyo aad ay u qiimeynayaan. sababtoo ah waa nin la hantiila ah, waa nin wiigiiba keenaya 2 goor meelaha ilaa 60,000 oo lacagta riyaalka sacuudiga. inankan dhalinyarada ah ee Khalid ninkaasi wuu adeegi jiray, oo bacdama shaqaalaha bankiga ahaa. ninkani markii ugu horeysay uu kusoo beegmay wuxuu ku dadaalay Khalid ninkan inuu isagu mar walba u adeego. xitaa telefoon nambarkiisa ayuu qaatay oo telefoonadii ay kala qaateen. sababtoo ah Khalid mar walba waxa uu u muuqanaya shaqadiisa inuu yahay nin firfircoon oo yani customer amba qof lacag leh u adeegay, oo maaragtay dadka yani lacagta badan soo geliya bankiga qof kamid ah ayuu u adeegaya. marka isaga laftigiisu soo dhaweynayo cumuulad ayuu bankiga uu ka helaya, bacdamaaba uu u adeegayo qof mar walba lacag badan keenaya meesha. haddaba waxa dhacday in uu isaga oo sidaa ugu shaqeeya ninkan, oo teleefoonaadka ay kala qaateen, oo mar walba uu yimaado maaragtay Khalid uu cararo, uu soo dhaweeyo bankiga kusoo dhaweeyo, lacagta ka qaabilo, uu maaragtay xafiiskiisa fadhiisiyo oo u adeego. ayaa maalintii dambe Khalid isagoo meel istiraaxada waxay yidhahdaan guri markaasi dhalinyaradu isla kiraysato, ay ku shaahayso, ay ku caweyso, isagoo halkaa jooga ayuu wuxuu ka fikiray niyahow ninkii odaygii waayeelka ahaa ee aad u adeegi jirtay bankiga calishaan iman jiray,
maalmahan iman waaba xisaabiye wuxuu yiri oo 2 bilood ban odaygaas maad arkine talo maxaa ku dhacay alla buu ka warwaray Khalid wuxuu yiri alla waa intaas banki kaleba wareejiyay maaragtay in lacagtiisii amba xisaabaadkiisii amba uu account cusub halka ka furtay meel kale uu ka furtayo ninkaasi markaasi aad khasaartid oo aad maaragtay adeegaha aad u adeegi weydaa hadda kadib oo markaasi soo dhaweyntii iyo cumuuladii bankiga aad ka helaysay aad u shaqeynaysay aad halka ku weydaa ninkii bacdamaaba uu telefoonkiisa hayay odaygii ayuu wacay Khalid markuu odaygii wacay qof haweenaya ayaa telefoonkii ka qabatay wuxuu ku yiri salaamu calaykum ya ukhti kayf xaalak calaykum salaam in odayga telefoonkan iska leh ayaa rabaa waxay tiri Allah u naxariistay odaygaasi 2 bilood ka hor ayuu geeriyooday wuu naxay oo 2 bilood waa intii aanu arkin odayga Khalid uu ka maqnaa 2 bilood ay kala maqnaayeen kadibna gabadhii ayuu weydiiyay wuxuu ku yiri in inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un Allah u naxariisto adigana maxay isu tihiin waxay tiri gabadhu anigu xaaskiisii ayaan ahay ha waaye buu yiri walaashay haddaba haddii uu ninkaasi geeriyooday waxaanu ka rabnaa yani banki hebel ayaanu ka soo hadlaya waxa aan ka rabnaa inaad haddaba bankiga noogu timaadid arrimo maaragtay bankiga ku saabsan ayaa halkan maaragtay odaygan ku saabsana oo aanu rabnaa inaad noogu timaadid awgood gabadhii way naxday oo waxay tiri anigu ma iman karo horta sababtoo ah anigu waxa aan maxay hayday ku jira cuddadii ayaan ku jira oo xaaskiisii ayaan ahay aniga ayuu maaragtay iga geeriyooday oo ma garanaysaa cuddadii ayaan ku jira cuddaduna de waa 4 bilood iyo 10 cisho marka 2 bilood kaliya ayuu ninkan geeriyeysan yahay marka anigu ma bixi karo oo guriga kama bixi karo waana siday tahay oo dan weyn oo aad weyn mooyaane lacala iyadoo xanuunsatay oo dhakhtar tagaysa iyo wixii lamida oo aan laga maarmahayn mooyaane waqtiga cuddada dumarku waa inay guriga ay ku hakadaan oo gurigooda ay joogaan marka waxay tiri gabadhu anigu marka ma bixi karo cuddadii ayaan ku jira wuxuu yiri haya ukhti hadaba waxaad samaysaa caruurtiisa mid kamid ha yimaadaan wiilashiisa mid kamid ha yimaadaan waxay tiri wiilashiisu kuma iman karaan oo caruurtayda anigu aan u dhalay waana caruur yar yar oo 3 wiil ayaan u dhalay 3deeda wiilna waxa ugu weyn ninka 15 sano jira baabuurkana ma wada yaqaano marka kuma iman karo inankaasi oo ina yar isaguna haddaba sida haday tahay anaga ayaa idin iman doona waaye ayay tiri marka waxa ay uu ku yiri waxay weyn xasanayd marka waxay ku tiri walaalow arintan maaragtay odaygii Allah u naxariiste ku saabsanayd zawjkayga ahaa ku saabsan bankiga maxay tahay ma lacag ba laga rabaa ma lacag ba lagu lahaa odayga markaas uu ku yiri maya lacag lagu ma lahayn isaga ayaa bankiga lacag dhigtay oo lacag ayaa bankiga u taalay gabadhii way yaabtay oo waxay tiri ma isaga ayaa lacagi bankiga u taalay markaasuu yiri ha anaga ayaa idin iman doona oo haddaba halkaas idinku soo wareejin doona waaye ayay tiri gabadhii bankiga hawshii ayuu bilaabay wuxuu la xidhiidhay dabcan laamaha maaragtay dhaxalka qaybiya waxa uu hubiyay dadka dhaxalka qaadanaya dadka ay yihiin kadibna waxa isaga iyo nin kale oo shaqaalihii bankiga ayaa waxay u tageen waqtigii ay ballameen gabadhii iyo caruurteedii gabadha wuxuu markaa ninku intaanu telefoonka ka dhigin weydiiyay adresska gurigooda waxay u sheegtay xaafad aad iyo aad qadiim u ah oo maaragtay dadka aad ka danyartay ay degaan magaalada Riyaad uu yaabay xaafadii magaceedii markuu u maqlay ninkii kadibna halkii ayuu ugu tagay isaga iyo ninkii kale ee bankiga ka shaqeynayay hadday halkii tageen waxa ay u tageen guri aad ugu tageen reerkii guri aad iyo aad sabool u ah yani qadiimi ah kadibna markay gurigii ugu tageen albaabkii guriga ayay garaaceen wiil yar ayaa ka furay oo inankii weynaaye maaragtay 22 jir waxaan ka wada 15 jirka ahaa halkii markuu wiilkii uu ka furay albaabka labadii nin sidii ayay ku galeen guriga markay gurigii galeen waxaa la geliyay qolkii fadhiga loogu talagalay qolkii fadhiga haday galeen waa qol yani qadiimi ah waa guri qadiim ah waana qol maran oo waxba una oolin hal barkin xataa ayna oolin meel lagu fadhiistaa jirin kuraas jirin marka wiilkii ayaa wuxuu ku yiri soo gala kadib wuxuu galay qolkii kale wuxuu soo qaaday buu soo qaaday go'i ayuu dhulka uu dhigay labadii nin buu ku yiri ku fadhiista go'i ayay labadii nin ay ku fadhiisteen isaguna go kale ayuu wiilkii soo qaaday go'i kale ayuu dhulka ku gogle amba uu dhulka dhigay kadibna hooyadii iyo isaga iyo labadii iyo walaalihiisi kale ayaa wada fadhiistay go'i kale
raggii bankiga oo yaaban ayaa gabadhii ay ku tiri walaalayaalow soo dhawaada maxay hayday aad rabtaan oo maxay hayday ninkan lacagta oo arintiisa bankiga maxay tahay waxay ku yidhaahdeen odaygaagu bankiga ayaa lacag u taalay waxay ku tiri waayahay waa imisa lacagta u taalay bankiga lacagtaasi ayaan rabnaa inaan kugu wareejino adiga iyo caruurtaada adigu bacdama bade hooyadii aad tahay adigu aad caruurtaada mas'uul uga noqotid oo maaragtay dhaxalka la idinku wareejiyay ayaan rabnaa lacagtuna waxa weeyaan way yaabto waxay tiri waaye lacagtu waa imisa waxay ku yidhaahdeen labadii nin ee bankiga ka shaqaynayay lacagtu waa 150 milyan oo riyaalka sacuudiga hadda waa 150 milyan gabadhii hal mar ayay suuxday oo dhacday oo waliba waji dhulka ugu dhacday labadii nin ee bankiga ka socday way naxeen gabadhan maxram ma aha ma taaban karaan ma qaban karaan ma istaajin karaan caruurtii hooyadood way ku dul ooyeen gurigii maaragtay nin ma joogo kale oo caruurta yar mooyaane way naxeen labadii nin ee bankiga ka yimi gabadhii baa adigu biyo la soo qaaday oo caruurteedba biyo ku rusheeyay oo ku dul ooyay oo gabadhii markii dambe way soo baraarugtay markay soo baraarugtay ayaa waxay tiri imise way lacagtu markaas la yiri 150 milyan oo riyaalka sacuudiga inta kaliya ma aha ninkani waxa uu lahaa 21 yani 21 cimaaradood sarar dhaadheer oo wada guryo ah oo wada karaysan marka la tiriyo qiimaha ay ku taagan yihiin cimaaradihiisa iyo lacagta kaashka ee bankiga ugu jirtay يعني hantidiisa maguuraanka dhismaha iyo lacagtii kaashka ee bankiga ku jirto kullu marka la isku tiriyo waxay noqonaysaa 900 oo milyan oo riyaalka sacuudiga ah يعني waa lacag aad u badan gabadhii way yaabtay waxay tiri wallahi alcadiim habeenkii baan sugi jiray marka ay mugdi noqoto banaanka uu mugdi noqdo caruurtayda si ay wax u cunaan qashinka roodhida ceeshka ah ee dadku markay iska tuuraan ee agdhigaan badana waxa laga yaabaa in ceeshka loo agdhigo haanta weyn qashinka si ay shimbiraha iyo waxay la mid yihiin ay cunaan markaasi ma garanaysaa ceeshkaasi marka khubuska amba ceeshka amba roodhida ballaaran ee carabtu cunto waxay tiri dadku qashin qubka ay agdhigaan ayaan habeenkii mugdi markay noqoto inta aan soo qaado oo aan qashinka ka soo qaado ayaan biyo ku qoyn jiray ilaa waroodhi qalalan si aan caruurtayda u siiyo heerkaas ayaan maaragtay cunto la'aan iyo gaajo iyo macluul aan ugu jirnay marka ma waxay leedihiin ninkaasi ayaa 900 oo milyan oo maaragtay lacag haysta wax kaash ah iyo wax ma garanaysaa lacag kaash waxaan ka wada yani lacag sideeda bankiga u taala iyo waliba hanti maguuraan ah haaba lagu yiri waraaqaha noo saxiix adiga lacagta lagu wareejinaya caruurtaadu waa caruur yar oo qaan gaar ahayn adiga mas'uul uga ahaanaya hantidooda sidaasi ayaa dhaxalkiini la idinku wareejiyay gabadhii way yaabtay way taajubtay raggii halkii bay u saxiixan waraaqihii way ka tageen hadday ka tageen ninkii Khalid dabcan arin la yaab leh ay ku noqotay isaga iyo saaxiibkiisii la shaqaynayayba ha yeeshee shaqadiisii isagu iska sii watay arintii muddo kadib uu iska iloobay waxa dhacday hadaba muddo markay ka soo wareegtay ilaa waxa ka soo wareegay markaasi 2 bilood iyo wax markay ka soo wareegtay waxa la soo hadashay amse 3 bilood meelaha waxa la soo hadashay gabadhii ayaa telefoon u soo dirtay waxay ku tiri walaalow waxaan ahay gabadhii heblaayo maxay hayday dhaxalka odaygii hebelaha aad ku wareejisay xaaskiisii ahayd umu hebel wiilkayga hebel la oran jiray may garatay aduu markii dambe uu gartay waan ku gartay walaasha iyo waran maxaad sheegtay waan fiicanay bay tiri walaalo waxaan rabaa wadigii dhaxal badan igu wareejiyay aniguna waxaan ahay qof nimcadani ay ku cusub tahay oo qof hanti maamuli jirtay ma ihi oo de qofkaas qashinka cuntada ka raadsan jirtay ayaan ahaa sababtoo ah odaygu bakhiil ayuu ku ahaa reerka marka waxay tiri waxaan ahaa qof de sida maaragtay macluul iyo gaajo ugu jirtay maan ahayn qof maamuli jirtay hanti weyn oo intaa leeg haddana mas'uuliyad aad u badan ayaa korkayga mar qura lama filaan ah oo aanan ma garanaysaa qaabaan u qaabeeyana aanan garanahayn ayay ii furshay mas'uuliyad aad u weyn hanti aad u badan inaan maareeyo oo aan mas'uuliyadeeda qaado oo aan ku tasarrufo ayaa waajib igu noqotay oo waliba si aan yani ka yeelana aanan garanahayn nimcadanina ay ugu cusub tahay
markaa walaalkayow anigu waxaa da-daydu tahay 40 sano ninkanina aniga oo yar ayuu guursaday isagu 80 sano ayuu jiray ninkii dhintay Allah u naxariisto caruurtayda aabahood bay tiri 3 wiil baan u dhalay kadibna waxa maantana waxa aan rabaa inaan ku weydiisto ka waran haddii aad i guursatid oo aad maalkan awlaadan agoonka ah aad maaragtay mas'uul igala noqotid oo aad maaragtay anaga oo dhan mas'uul naga noqotid ka waran ayaa ay ku tiri sababtoo anigu maalkan ma ilaalin karo ma dabari karo ma ku ganacsan karo oo ma garanayo qaabka hawshaasi loo qabto waxaan ahay hooyo guri joogta waxaan ahay qofan nimcadan hore u soo marin marka ninkii wuu yaabay oo wuu naxay waxaan ahay bay tiri gabadh wanaagsan oo akhlaaq leh oo reer fiican ka dhalatay waliba bal ka soo fikir arintaas waalidkaana la soo tasho istikhaarana ka soo tuko waaye ayuu yiri ninkii Khalid daadiisu waxa ay jirtaa kaliya 35 sano gabadhuna waxay jirtaa 40 sano ilaa 41 meelahaas weeyaan marka waa da isu dhow oo laba qof oo wax badan kala weyn runtii ma aha Khalid hore uma soo guursan hayeshe Khalid arintii uu ka fikiray waalidkiina uu la tashaday aabihii buu la hortashaday aabihii markuu sheegay arintii aabihii wuxuu ku yiri why not aabo maxaa ka micnaa tabcan wad guursan kartaa gabadh la guursado way u qalantaa maxay ahayd haday iyaduna maaragtay sida arinta ay ku soo bandhigtay istikhaaratu ku aabo oo maaragtay gabadhaasi ku dhaqaaq guurkeeda ayuu aabihii u kala taliyay sidoo kale hooyadii ayuu la tashaday hooyadiina sidaas leeg ayay ku tiri way soo dhaweysay arinka Khalid salaat al-istikhaara ayuu ka tukaday arintii qalbigiisu waa itminaan iyo maaragtay qabuul ayuu ka dareemay kadibna arintii uu ka ogolaaday gabadhii uu guursaday Khalid mu ahayn qof tamac lacagta kaga jirta waayo nin iska shaqaysta dhaqaale wanaagsan iyo family wanaagsan ka dhashay oo dhaqaalihiisu iska normal yahay ayuu ahaa qof wuxuu ahaa ishiisu buuxda oo qalbigiisu buuxa ma sha Allah ilaahay cidna uma amaanayno laakiin sida qisadii inagu soo gaarsiiyay inuu ahaa Khalid qof aan tamac kaga jirin maalkan laakiin sidii ilaahay ugu talagalay oo maareynaya caruurta agoonta ah hayeshe Khalid waxa uu aabo u noqday caruurtii agoonta ahayd aabo yani dib la'aan ku dhalay aan iraahdee oo hooyadood guursaday ayuu noqday isla mar ahaantaana maalkoodii ayuu u maareeyay isla mar ahaantaana xaaskiisii xaaskii odaygii ayuu guursaday isla mar ahaantaana ninkii cuni waayay risqiisii waa loo cunay ninkani waxa weeyaan Khalid isagoo oo si xaq ah oo u cunaya oo sida la sheegayo aan yani dhulmi aan u geysanin iyo tacaddi maalkaas iyo dadkii maalka lahaa midna oo u khidmaynayay sidii ugu haboonayd haddana dabcan waa qiyaasan kartaan nolol raaxa leh ayuu gelayaa qofka waxa soo malaayin ah mas'uul ka noqonaya odaygii dhintay Allah u naxariisto ilaahayna ha ka cafiyo dhulmiga uu u geystay naftiisa iyo waliba ubadkiisa iyo xaaskiisa iyo intuu mas'uulka ka ahaa arintan waxaynu ku xasuusanaynaa xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut يعني قفك بني آدم كواحد دنبي وقفلا إن أولميو حقوق أنبا ضيعه دتك يواجب ككتهاي إن نفقيه أنبا بيليو هذا بقى إلهي سبحانه وتعالى هاي نقول أنفعه إن حديث كاسي رسول كسو لقسو وريه صلى الله عليه وسلم إيه قصة داسي رنتي عبر قادة شذا مضن قفك بني آدم كان وحا لغا ربا إنو دحدحاد نقضه maalkiisana inuuna luminin uuna dayicin uuna israaf uuna ku samaynin isla mar ahaantaana bakhaylnimo iyo gacan xidhnaan in aanu qofku ku dhaqmin haddaba intaynu ku kulmi doono barnaamijyo kale iyo qisas kale waxaan idinkaga tagay fi amaan illah astawdactukum illah alladhi la tadhi'u wadaa'a wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk